بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسدوا هذا معد كعين تكنولوجي انستيتيوت اللي قبرته علمي اي سي تي جا يا اكاونتينج او ku baxal luqada af Soomaaliga ala waxa casharada la socodsiin aniga waa Shaafi Axmed Cali waxaanu insha Allah xiisadeenii hore soo aragnay sida loo sameeyo trial balanceska sida loo sameeyo oo iminka saddex process recording processka saddex baynu soo aragnay waxaan soo sheegay loo yaqaan journal waxaan soo sheegay loo yaqaan ledger waxaan soo aragnay loo yaqaan trial balance saddexaas aynu soo aragnay oo fahan aad iyo aad u sarreeya ka soo qaadanay waana saddexda ugu badan ee computerka laga arko saddexda ugu badan ee computerka laga arko ka ledger kuna wuxuu ahaa mid kastaba account walba qayb gaar ah ayaa diiradda la saaray ama account walba qayb gaar ah ayaa si gaar ah loo eegaa dhaqdhaqaaqiisii maanta waxaynu eegi doonaa insha Allah erey haddii ala ka dhigo in badan wax laga yaabo dadka accountingka ama dhigtay ama accounting ka dhow ay inta badan maqlaan waxa loo yaqaanaa dad maqasho the chart of accounts the chart of account ama waxa la yaqaanaa ZOA ama chart of accounts waa maxay daba ayaa la isweydiin karaa wuxuu ku leeyahay chart of accounts is a list of account names waa taxane ay ku ama meel ay ku jiraan maxay list waa taxane ay ku jiraan maxay accountnada magacyadoodii the company ledger general account and each account complemented with the account number complain waxa lagu sameynayaa in account number la siiyo waxa la yiri maxay qayb kasta oo kamida maxay ledgerka kamida waxa la siiyaa assantis ayaa waxa la siiyaa waxa loo yaqaan account number la siiyaa qayb kasta oo accounts kamida waa list ay ku socodsiiyaan ama list ay ku taxad ama list ay ku jiraan dhamaan accountski listkaasina waxa weey oo la siinayaa maxay waxa loo yaqaan account number waa la siinayaa marka journal marka ledger la joogo shaygan doonaya ka faano waa shaygan marka halkan la joogo waxaan soo diyaarnaa waxaan mar dib u kaco waa ledger waa shaygan marka account lagu qoro waa ka numberka la sheegay waa ka account walba number unique ah siinaya si loo garto waa ID way waa shay identification ah waa shay lagu cadeynayo account marka kaasa loo yaqaan maxay chart of accounts ka la yaqaan hadaba inta badan account numbering sana loo nidaamiyaa oo standard ka wasidan in assantiga la siiyo 1 ala liability 2 la siiyo waxa la wixii unlisiguty 3 la siiyo waxa la wixii revenues la siiyo 4 waxa la wixii expenses la siiyo 5 sida loo nidaamiyo ama inaha assantis waa 1000 ila 1099 liability na 2000 ila 2099 unlisiguty 3000 and 3099 revenues 4000 and 4099 expenses 5000 and 5099 okay saasa loo nidaamiyaa marka imiko kale de assantisku way farabadanayaan hantida taala meherada aad bay farabadanaysaa waxa kamid noqon kara taalan cash oo kala kamid noqon karta cash waa farabadan karta oo kowna badan ama magac bixi karta hadhow marka software-kana waafajin doona insha Allah waad arki doontaa BT cash on hand, cash in bank, cash zad, cash e-dahab, cash EVZ, cash marka la soo waafajinayo ku weyn marka assantiski gaar ahaan assantiski account kamid ah ayaa aad fara badanay marka waa number aad u badan baa la siiyay runtii oo maxay 1000 ilaa 1999 waa number aad u fara badan oo dad aad kaansa runtii in assantis number inta la gaaro aad bay aad kaansa meherada aad bay aad kaan xagan kale waxaad ku aragtaa liability-ga tuuba la siiyaa liability-ga waxa ku caansanaa liability caansanaa an reserve revenue account payable note payable salary payable and wage payable tax payable kuwaas oo dhammaystiran ugu caansan marka isagana waa 2000 ila 2009 ayaan la siin doonaa waa standardka owners equity waxa la siiyaa 3000 ilaa 3999 revenues-ka waxa la siiyaa 4000 ilaa 4099 expenses-ka waa 5000 ilaa 5099 hadaba iminka bal sample ayuu halkan inoo siinayaa tusaale ku saabsan bal sida loo kala siinayo wuxuu lagu yiri assantis account titleska kuwana kamid ah cash on hand waxa la siinayaa 101 cash in bank 120 bal siinayaa account receivable 100 office supplies 1200 office equipment 1500 marka iminka wuxuu u dhigayaa
toban buu dhaxaysiiyey macnihii waa iska nidaam fiican toban loo dhaxaysiya waa nidaam fiican haddii ay wax dhex galaan in lagu dhex daro midda kale waxa oo loo kala horeysiinayaa nidaam ahaan marka la eego ma odhan karto office equipment waxaan siinayaa 1,100 ma odhan kartid waxaa loo kala siinaya dhinaca liquidity-ga loo eegayaayo dhinaca mudnaanshaha ama shayga dhaqdhaqaaqa ugu badan sameeya loo eegaya ama dhinacii kala horeysiinta waxaad aragtaa cash on hand ayaa lagu horeysa cash in bank baa ku xigta account receivable baa ku xiga cafwan way waxa ku xiga office equipment marka dhinaca liquidity-ga loo eegaya dhinaca liquidity-ga ayay ku kala sareynayaan marka dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo dhinacaas ay kala horeeyaan orderka marka xitaa aanu sameynay wixii loo yaqaanay financial statement gaar ahaan balance sheet oo kale markaynu sameynay sidoo kale horeeyaan bay kala horeeyaan haddana numbers kan sida loo qaasinayaa waxa kan ay liability oo ka soo qaatay note payable oo 210 210 cafwan account payable salary payable mid soo xusinaya maxay 10 buu dhaxaysiinaya ama konton ayuu dhaxaysiinaya marka waa wixii soo kordha lagu dhex dari karaa capital oo kala baa caansanaa waa capital iyo dirowi isagana wuxuu isticmaalaa charter waaya kan kale loo yaqaan revenue-ska wuxuu siiyay 4,000 iyo charter kan kale loo yaqaan salaano ka expenses-ka 5,000 iyo charter buu siiyay marka cashirkan runtii wuxuu ka hadlayaa list account chart of accounts buu ka hadlayaa in badan oo maqalsa waxa la yaqaan chart of accounts software kana aad baan ugu maqli doonaa chart of accounts dad maqasho waa accountadii oo list ah accounts-kan software wuxuu ku fiican yahay saqa wax bay diyaarinaya accountada aynu markaa naftaan shirkadu waa merchandise alaabta way soo siibisa ama markaa waa service ama markaa waa hay'ad waa non-profit organization ama markaa waa manufacturer markaa soo sameeyay isaga wax account loo baahay oo dhan diyaarinaya markaas ku fiican markaa waxa dhan chart of account ku inoo diyaar chart of account boqolna waxa uu koobaad ee software insha Allah aynu ka qabanayno marka waxaan filayaa inaynu isla fahanay ereyga chart of account waxaan cashar dhan uga dhigay sultan wax weeyaan in aynu fahanno waxa loo yaqaan chart of account waxaan filayaa inaynu casharka isla fahanay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh